waxaa maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer si weyn looga xusay xuska maalinta 18 May oo ah maalinta ay Soomaaliland kala soo noqotay xorriyadda dalka Soomaaliya 1999 waxaana shacabweynaha gobolka Togdheer isugu soo baxeen fagaaraha garoonka diyaaradaha ee magaalada Burco waxaana xuskani ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Qaranka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Seylici wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka wasiirka diinta iyo awqaafta iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale waxaana hadalkaas ka daba qaatay maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo sidoo kale barasaafka gobolka Togdheer Mudane Xamse Maxamed Cabdi waxaana jawaab culus ka bixiyeen dagaalka ay saaka subaxnimada ciidamada Soomaaliland iyo sidoo kale Puntland ay gacmaha isugu la tageen deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool waxaana kamid ah hadaladoodii sida tan madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxda qaranka ee halkan joogta munaasabtoodu kala duwan tahay iyo dhammaan dadweynaha halkan isugu yimi noocay u yihiinba iyo saxaafadda waxa la salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waa 18 May xuskii 18 May 2018 waa 27 guuradii maalinta inagu weyn ee qalbiga qaranka Soomaaliland ku weyn ayaynu maanta halkan ku xusaynaa waa maalin aynu ku tiirsanay waa maalin taariikh aad u weyn oo aynu kaga samirnay 50,000 oo inan oo aan xuran iyo aabbayaashood iyo hooyooyinkood iyo waalidkood oo xornimadan u soo halgamay oo ku dhintay oo ku geeriyooday saaka waynu dabaaldegaynaa ciidamadeennii qarankuna jiidda hore ayay difaac kaga jiraan salaaddii hore ciidankeennii la soo weeraray waana la jabiyey waa laga guulaystay ciiddii ciidankeennii soo weerartay dhinac waynu ka dabaaldegaynaa wixii ina soo weeraray qaranka Soomaaliland soo weerarana iyagoo maanta isla godoloolooyin badan bay leeyihiin ka faa'iideysta waynu u tumayn socaynka ma yarkan buuranayna cali gaas waxaan leeyahay hallu gooyn waraabow libax kuma leeliyana warsaaka hadaad istiri waxba Soomaaliland ka jira hadaad istiri war meeshan yara aad fadhidee garowe war wallaahi way kugu xumaan doontaa Soomaaliland ha noolaato cadawga Soomaaliland ha jabo horumardiidka Soomaaliland ha jabo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ha guulaysto ciidanka qaranka Soomaaliland ha guulaysto shacabweynaha reer Soomaaliland ha guulaysto madaxweyne ku-xigeenka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka wasiirka diinta iyo awqaafta gudoomiyaha golaha deegaanka ahna meeyarka caasimadda gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer dhammaan dadkayga gobolka Togdheer ee aan jeclahay mudaniya marwaba mid yar iyo mid weyn caruur iyo ciroole assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh walaalayaal maanta waxaynu u dabaaldegaynaa maalintii Soomaaliland u suntanayd maalintaas oo taariikhdeeda iyo siday ku timi iyo halgankii loo soo maray iyo burburkii loo soo maray wada haysaan waxaan maanta isweydiinaynaa maxay ku timi 18 May 1999 dagaal qaraar kadib barakac qaraar kadib xasuuq badan kadib halgan dheer kadib waxaa dib loola soo noqday gobolladii waqooyi ee la odhan jiray Somaliland British Protectorate waxay ku timi shirkii koobaad ee ka dhacay magaalada Berbera 1999 oo ay isugu yimaadeen dhammaan beelaha ku abtirsada gobollada waqooyi waa Berbera ka dhacay waxa lagu heshiiyey in la isugu yimaado shirka labaad magaalada Burco shirkii labaad ee magaalada Burco ka dhacay oo ay isugu yimaadeen dhammaan dadka ku abtirsada gobollada waqooyi salaadiintooda siyaasiyiintooda cuqaashooda garaadadooda
ugaasyadooda siyaasiyiintooda iyo hoggaankii ciidankii SNM waxaa la isla gartay in xorriyaddii aynu ku logoonay ee isku darkii 1960kii aynu ku darsannay gobollada koonfureed ee Soomaaliya ee uu Talyaanigu gumaysan jiray dhibaatadii ka soo gaadhay guud ahaan dadkii mujtamaca reer Soomaaliyeed gaar ahaanna dadkii gobollada waqooyi ku abtirsanayay waxaa la isla gartay in dib loola soo noqdo gobolladii waqooyi ee Ingiriisku gumaysan jiray. dhan kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka caafimaadka, wasiirka diinta iyo aqaafta, Abwaanad Koosta Macay sidoo kale Cabdikariin Xinif waxayna yiraahdeen doonaya marka hore inta yar ka horeysiyo soo dhaweynta madaxweyne ku-xigeenka halkan waxa markii aan halkaasaan fadhiyay markii uu hadlayay Cabdikariin Xinif iyo gabaygii inta ay halkan ka tirisay waan qiirooday sababtaan u qiirooday waxa weeye reer Burcaan ku dhashay برا سكول كلا يقرأ سكول كي لا يقرأ عثمان عبد العلي سكول كي نهر بريمك عثمان عبد العلي ما مرها يجيبوها لا يبدأ حريسته نوان بدري صبح مركز سكول كي نوان اللي معموله مية مثلا واتي حلي الدري واحد كبر خاتك عيا برا عن بريه قلبين يوقوي يكون فرطانة يعري دول سكالة يوم بقعية كلا بداري لهين maanta oo aynu xafladii 18 May u dabaaldegayno cadow baa inahay maanta cadow dawladeed baa inahay uma baahnin bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfurtoona uma baahnin in mudaharaad laga sameeyo magaalooyinka waaweyn uma baahnin in meelo kale shaqooyin ka dhacaan haday ka dhacaanna looba baahna in la buunbuuniyo waxa weeyaan burcooy دوانا سيبتر هذه ما أنت هسي هالك لقى شيء سيد هانشرتي برا هذين نقطة سكولو هذين نقطة حبرشة هذين نقطة استحقال كيسة هذين نقطة معها هاي سياسة هي أركتي سياسات برا ما يكفي عندي بتشيلوا كم عليه هذين ما أنت إنك إسكسو هوس نقولني والله كاسينا كالبيت بوكيبي كاسينا وقوي وانا سيبتر على رسول الله إلى دمجنا هدافو دمج والكنا الله هدافو إلى طريقة توصلنا وافجيو مناسبة هذا القرن كقيمها بدلنا إلى سبحانه وعرف الله نجيله والله يا لوجورين وحنهم بليه يبقى قادرين ودرينا مدحنا القرن كوور مدحنا قرن سومالي مدن مسبيح عبدي مدحنا كحنينك القرن كا مدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل زيلعي iyo goliisa wasaarada golaha baarlamaanka golaha shacabka baarlamaanka guurtida madaxda gobolka Togdheer xisabta qaranka ee kala duwan iyo dhawaanba dadweynaha ka soo qayb galay munaasabadan qiimaha badan ee aynu maanta soo nimi maanta maalintii u dambeysay bishii Shacbaan oo berito la filayo sida caalam islaami laga dhawaaqay inay noqoto Ramadaan haddii la ka dhigo munaasabadan qaaliga oo ay tahay 15 laakiinse aynu soo hor waxa mas'uuliyadaas qaba dawladdeena oo qiimeynaysa shariicadeena qiimeynaysa oo dastuurkeenu cadeynayo inaan diinta dhowrnoo ilaalino maalinta ay diin May nagu soo beegay 3 kadib iyadoo aynu xusayno habeennimo oo aynu xafladeen doono waxa loo soo qaaday maanta bandhigna dhacay dhalinyar haddii tahay hadday tahay urur bulshada hadday tahay xisabta qaranka dhammaan maanta waxa weyn maalin farxadeed oo aynu ku qiimeynayno diin May ma aha wax fudud si fududna kuma iman deeqaha ilaahay iyo rabbow dawladnimadayda Puntland inay dumisabay doonaysaa maanta istifaac ayaa la idooran doqonti weeyaane daandaasi bay nagu wadaan daakhilaaniyahe digaraaro xoog la ku dhacay dib xasuustaane dumarkii iyo carruurta ku filan doorkan maanta ah ninna dooran mayne haday nabadda diidaan wada kala dagaalkood degta qoriga wada sura daarahan iswada simaana bidkood dagaal adag dudumooyin kaga dhiga dabka ay la gaadhay dhammaan duurka wada sura ilaa dawlad baatee dubaabaadka yaaliya xadka diirad wada dhiga digtoonaa ku wada jira dayartii agoomaha aan ku jirin dagaalada daryeelo halaynina hadii la cadowgeena badana u daafura ugu dambeyntii waxaa dalka soo afmeeray madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda qarankan Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici waxaana ka mid ah hadaladiisii sida tan mudanayaal iyo marwooyin mudan taalkan isku timiday marka hore salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib Allahu akbar
الله أكبر الله أكبر سومالا هنولاتو سومالا هنولاتو سومالا هجرتو عدو قيدنا إلهي مارتي هكا قبتو عدو قيدنا إلهي جبيو انت كدب ما انت ومالي وين ومالي سومالا كوين ومالي أمد الرئيس سومالا يرئي وين بكوين وحنا كان ما انت يذكر أفر قضب همبليو وقضب كواذا دوت أمد بيش عالم كان وحوقت الماء منه دردارا أمد الرئيس سومالا هذا يدي رجالين تعيدا كان الجيد هوري جوجا أفرتا قضب وحكورنا يا marka hore waa hambalyo waxaan mid reeso maalan meel joogtaba haday dibad joogtay haday guda joogtay waan ku hambaleynayaa maalinta dabaaldega sanad guureed 27aad ee ka soo wareegtay la soo noqoshadii xornimadii Soomaaliland ee 60kii naga luntay ama inagu iska luminay inaga luminay cid kuma eedeynayno qolada maanta walaalaheen naga dabaqayleysana inama ay qabsanina inaga wada tagnay kalgacayl walaalnimo wada tagnay laakiin waxaan maanta ku faraxsan aan leeyahay ku hambaleyna umada reer Soomaaliland in maanta meel walba ay joogan ay uga dabaaldegayaan maalintii ay garteen in dib loo soo noqdo xorriyadooda oo ahayd 18 May 1999 oo laga dhawaaqay magaalada Burco ee maanta jooga anigu iyo waftigeygu oo nasiib u helay maanta inaan halka ka dabaaldegno meeshii laga dhawaaqay ee abayaasheen ka dhawaaqeen ee qaarkiin awayaashiin ka dhawaaqeen ilaahay baa mahad leh horta taas waxaan leeyahay daba reer Burco hambalyo gaar ahaan hambalyo la marka hore wadajir ku dabaaldega wadajir ku ciida marka labaad ee Soomaaliland waxay goosatay inay qaranimada la soo noqoto waxaan leenahay sida taariikhda laga warramay 1999 iyadoo dhibaato dagaalo iyo maarta dagaalo sokeeye iyo umada reer Soomaaliland la qaybiyay oo waqtigii rejiimkii jiray ama dawladihii rejiimadii ka jiray Afrika oo dhan aan ka mid ahayn ee ciidamada horseedeen inqilaabada ciidamada ka dhacay maarta 70-nadii ilaa 60-nadii ilaa 70-nadii Afrika oo dhan ka dhacay ee u horseeday dhibaato badan iyo maarta caburin badan iyo cadaadis badan kadib markii maalintii ay dintay dawladii kalitaliska ahayd umadii reer Soomaaliland waxa ku go'aansatay in xornimada ilaahay dib loo soo noqoto isku soo wada xooriyo munaasabadani ayaa xuska 27 guurada Jamhuuriyadda Qaranka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciise wararka telefishinka caalamiga Soomaali Cable Burco.